disaha taabagelintiisa loo dhaqaaqay qoysaska beerahooda laga xindaabtana waxa kamid ah Xuseen Cali Aadan dukaan marreed la iska xindaabtay waxa weeyii waxna laga weydiiyay ma jiro waana la boolayaa waa dul la boolayo oo ay boolisooyaan ma aha anaga waxna laga weydiiyay dukaas waxa weeyaan laba sano wax kama aan qodan waan ka barakanay waxaan hay aabele afar ciyaala oo ku nool qadalaha marka dukaas taasana laga boolay wax laga weydiiyay ama wax laga weydiiyay ma jirto waana la boolay bixideenkan oo deegaanka Oromiya u qoondeysay adduun dhan 400 milyan oo birta Itoobiya ayaa ah mid baalmarsan bayaanada iyo shuruucda lagu maamulo mashaariicaha xuduudda laga hirgelinayo isla markaasna saameyn taban ku yeelan kara qulqulka toga jarreed maadaama dooxada marar ay bixideenkani laga dhisay ay tahay barbilowga toga jarreed sida BBC-da uu sheegay xildhibaan Maxamed Ibrahim oo laga soo doorto degmada Tulli Guuleed waxa weeye 30,000 oo qoys oo area-da ku nool ayaa barakacinaya ugu horeysa weey arinta labaad ee meesha jirta waxa biyaha meesha lagu qabanayo waa almost 3 trillion liters oo biyaha lagu qabanaya waa dooxo jigjiga soo dhaxmarta sharar ku beerta oo waxaan ku raadin main source-ga sharar ah area-daas oo dhan waxay ku noqonaysaa inay biyo yaraan ku dhacdo waxa ka qodnaa 57 ceel oo dadku ay ka cabi jireen waqtiga jiilaalka 57kiina way aaseen marka laga tago jigjiga oo ku noqonaya daad hadii uu jabo waxa imanaya biyo yaraan macal jigjiga soo wajahaysa because waa basinkii biyuhu soo mar jireen ilaa jarar ilaa qabridaar ilaa shilaabo laga gaariyo taasina waa dhibaato kale oo ecologiyeed oo xagga biyaha ah arinta kale cajaa'ibka waxay barakicinaysaa 30,000 qof qoys oo kale meesha ku nool oo beer ku lahaa oo deegaan ku ahaa oo xoolo ku lahaa dhammaantood waxay noqonaysaa in command area meeshaas noqoto dadka ka qaxan waa arinta labaad arinta saddexaad ee soo biiraysa arinta afraad ee cajaa'ibka waxa weeyaan meesha waxay ku taala waa dooxo u dhaxaysa labadii dhinacba Soomaaliya hal ahaato laakiin waa dooxo labada dhinac kuna way ka cabi jireen kuna way ka cabi jireen lagalama tashan shacabkii sustainability-giisna waa under question sababtoo ah dadkani waa dad isleen jiray dagaal ka dhaxeeyeen arin dhul marka tiibay Oromadu aad moodaa inay si deliberately hadda u soo kicinayso wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Oromiya ayaa soo gaaray goobta laga dhisay biyo-xireenkan bishii labaad ee sanadkii tagay kadib markii dhismaha uu istaagay kabiyadiid ay sameeyeen maamulka deegaanka iyo shacabka aagaasi ku dhaqan madaxdii deegaanka ee dhigooda deegaanka Oromiya la xajootay waxa kamid ahaa Maxamed Faatax Maxamed wasiirka horumarinta waraabka ee dawladda deegaanka Soomaalida laba wafdi oo labada deegaanka kala socdo labada madaxweyne ku-xigeen ay hogaaminayaan ayaan kamid ahayn saddex qodob baa ugu muhiimsan waxaynu eegnay go'aankana la iskula qaatay qodobka koobaad daraasaadka markii la sameynayay maadaama uuna hal deegaan ayna ku koobnayn arrintu hal goobna ayna ku koobnayn isla deegaanka gudihiisa laftiisu ay saameyn yeelanayso daraasaadku dhammaystiran ka deegaan ahaan in lala wadaago aan daraasayno keliyata goobta biyaha lagu qabanaya iyadoona ahayn goobaha ka hooseeya biyo shubkuu noqonayay saameynta ay ku yeelan karta mustaqbalka dhaamka la dhisayna la daraaseeyo go'aan laga gaadhaa qodobka labaad ka faa'iidaysiga weeye hadday timaado in la dhisa dhaamkii ka faa'iidaysigii iyo wada yeelashadii wax la xidhiidha weeye oo ahayd ka deegaan ahaan hadday noqoto meel ku habboon dhaam in laga sameeyaa maadaama uu dhulka ugu ballaadhanee saameynta ku yeelanaya deegaanka Soomaalida uu yahay ka dawlad ahaan inaan diyaar u nahay intaas ka kaashanno inaan wada maalgelinno kana faa'iidaysanno inay noqoto qodobka saddexaad waa mustaqbalka iyo maamulkeeda kol haddii la wada maalgeliyey dhulka laga faa'iidaysanaya ka faa'iidaysanaya deegaanka Soomaalida iyo Oromada ku jiraan inay noqoto maamulkeeda labada deegaan mid ay gacanta ku wada hayaan saddexda qodob wixii ka baxsan waxay noqon doontaa heshiiskii go'aanka ku jira wax ka baxsan inuu noqon hogaaminta guudna mid u taalo inay go'aanka gaadhaan ayay noqonaysaa mowqifka xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa mashruuca in la joojiyo inta heshiis laba dhinac laga gaarayo sida uu dhawaan saxaafadda la wadaagay injineer Maxamed Shaale madaxa xarunta dhexe xisbiga barwaaqo ee talada deegaanka haya heshiisku ahay kaliya maaha anaga wada hardiin iyo wali u dhaxayso xageena way jirtay wax alla wax isku dhac keenaya ay horumar sheeg la joojiyeen ku isku ogeyn haddana mowqifka aan qabno waa kaas in la joojiyo heshiisku nahay daamka sababtoo ah waxa uu keenay dhibaato ka badan muranna meesha uu ka jira marka mowqifkanaga waa in la joojiyo in la dhiso hadda kuma heshiin wada hadal badan inuu socdeen talaabooyin dhinac laga qaaday oo isku day ugu jira ma sii soconaya barnaamijna mashruucan oo halisiisa ay kamid tahay in